هلا السلام عليكم دمان أصحابتي ذا رير فيسبوك انت طبعا هاتن إن إداوانيسو سلامة السلام كان يقول سلام يا مركو أقوه الرئيسو السلام عليكم هودي ملتشوغا ملاي مقليا وحان إذن لاي هاي سو دواذا وإذن سو دوينيا وولاشين لك حاجة marka waxaan rabaa in aad maxaan ku raahdaa oo aad dhagihiina amaahidaan oo aad ii furtaan dabcan hadaayay baan idinka ballan qaaday oo aan idin dhahay arrimo muhiim ah baan ka hadli doonaa hadduu alla idmo waxaan horta aan ka cudur daaranayaa waan soo daahay horta la iga raali ahaado inta aan soo daahay tan xigta waxaan rabaa programkii inaan gudaha u sii galo waxa aan rabaa in aan ka hadlo asxaabteyda qaaliga ah oo aan jecelahay iyo shacabka dabcan waxa weeye dad badan baa facebooka ku jira programka aan rabo in aan ka hadlo oo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo ay indhaha ka dateen in ay ka hadlaan dabcan laakiin aniga laki ah waa isiin weyday dulqaadkeeda masaniyadeeda waa isiin weyday inaan ka aamuso inaan ka hadlo ayaan jeclaystay shacabkayga quruxda badanne ra'yigiina iyo fikradihiina iyo inta wax garadka ah inaad ila wadaagtaan oo haddaan qaldanahayna laki waa qaldantahay inaad tirahdaan baan jeclaystay marka aad baan idin salaamayaa kal iyo laab baan idinku salaamay waa halkii DJ Swear kal iyo laab marka horta waxaan rabaa inaan horta idin wada salaamo idinkoo idil salaan kadib maanta waxaan joogaa horta oo aad aan ugu faraxsanahay oo aan u imi maxaan ku rahdaa Faadumo shaxshaxley habartay gurigeedan aan galabta aan imi inta aan idinkaga soo dahay waa inta jidka fiila igu qabsatay waa jam oo ayuu ahaa maanta marka waxaan jecelahay programkaasi insha Allah iyadana waa igala qayb qaadan doontaa shaxshax waa fanaanad qaran waa jilaa qaran hobladay waa bari waa dadka aan ku dayano oo aan jecelnahay in meelihii ay soo mareen insha Allah inaan marno Faynus iyo shaxshaxley iyo Maris Carbone iyo qaar kaloo badan marka waxa weeye asxaabteyda qaaliga ah waxaan rabaa inaan ka hadlo program oo ay fanaaniinta indhaha ka dateen laakiin anigu aan ka dadan waayo muxuu yahay programkaasi waa programka Somali Week waxaan kala garan waayay anigu 7 bilood baan horta wadanka UK gaar ahaan London aan ku noolay hadda intaasina waxa weeye inta fanaaniinta inta aan aqaano meel walba ay joogan gaar ahaan kuwa London dabcan garan maayo waxay ayagu ay uga dateen indhaha oo ay kaga hadli waayeen oo anigoo shalay soo dagay waxa aan uga hadlay waxa weeye waa waxaan arkay qofka bini aadamkana waa fiican yahay waxa uu arkay inuu ka hadlo sax mise qalad صح marka waxa weeye programka Somali Week waxa weeye waxaan rabaa inaan horta qof walba soo u arko horta inaan ogaano Somaliland Week miya mise Somali Week wala badood ما برنامجك waa Somaliland Week haduu yahay waa jecelahay waa u hambalyeynaya maxaa yeelay waa dadkeeni horumarka qiimaha badan ee ay gaareen oo mar walba ay ku talaabsadaan waa ku faraxsanahay waan ugu hambalyeynaya waa asxaabteyda fanaaniin ha dhihin shacabka ha dhihin wallahi waan jecelahay waa dadaan jecelahay waa wallahi nacam waa dadaan isku diin iyo isku diir aanu nahay oo aan jecelahay laakiin haddii Somali Week programka sanadlaha lagu qabto London uu yahay Somali Week xaq baan u leeyahay inaan ka hadlo Soomaalidii baan kamid ahay Soomaalidii qurbaha ku nooleed baan kamid ahay Somali Week haduu yahay
kii gaarisa joogo kii jabuuti joogo kii hargeysa joogo kii soomaaliya joogo muqdisho joogo iyo kii puntland joogo kii oo etoobiya dowlad deegaanka joogo meel walba ay joogaan waa ii wada soomaali shacab iyo fanaaniintaba laakiin anigu waxaan arrintaasi maanta aan live-ka aan ugu soo fadhiista waxay tahay Somali week looma dhama Somali week programkaasi oo sanadlaha fanaaniinta lagu keeno ma loo dhama waa sax looma dhama waxaana loogu dhameyn baan idin cadeynayaa waxaan loogu dhameyn waxay tahay fanaaniinta waa dulman yihiin fanaaniinta Soomaaliya oo dhan jooga waa dulman yihiin maxaa yeelay si sax ah waxba looguma qaybiyo fanaanka jooga maxaan ku rahdaa Hargeysa iyo fanaanka jooga Muqdisho iyo kan Nairobi joogo iyo kan Gaarisa mase Jigjiga joogo mase Djibouti joogo mase Puntland joogo maxaa u diiday in la simo walaalayaalo shacabkaygiyo anigu waxa weey waxaan jeclahay wax walba oo aniga oo aan arko inaan ila qaybsado farxad ha noqoto mise ha noqoto maxaan ku yiraahdaa siyaabo kaleba marka waxaan taa uga gol leeyahay waxay tahay maanta mid baa jirta fanaaniin marka sorry telephone baa ii soo galay waxa weeye fanaaniinta jooga sorry telephone baa ii soo galay fanaaniinta joogo Soomaaliya gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed maanta magaca Soomaali haday wadaagaan for example fanaaniin waxa jira hadda cusub oo hadda soo baxay oo in muddo hadda oo fankoodana aad loo jecel yahay qurbaha laga jecel yahay marka maxaa diiday fanaaniinta la keeno oo dabcan waxa fanaaniinta inta badan laga keenaa waa Hargeyso maxaa diidi karaa isleedahay hadii maanta fanaaniinta laga keeno Muqdisho hadii laga keeno maxaan ku raahdaa Jigjiga mase Nairobi mase maxaan ku raahdaa Puntland mase anywhere ay joogaan fanaaniinta maxaa u diidaya in fanaaniinta la simo oo fanaaniinta niyadda aan laga jabin oo dabcan waxaan oran karaa kolley aniga fanaaniinta ma kala jecli aniga laakiin waxaan jeclahay in la simo maadaama Somali week uu wato magacii Soomaaliyeed marka waa dabcan dad badan baa hadaladayda ka xanaaqi doono laakiin uma joojinayo wixii xanaaqaya waa xanaaqayan maxaa yeelay runta waxa weeye indhaha ma laga dadan kara indhaha wixii qofka bini'aadanka danqiyeen waxa weeye inuu ka hadla wanaagsan laakiin inaan sacabada u tumo wixii qaladka ah programkaasi waxa oo daadihiya oo hagaajiyana waxa weeye waxaan rajaynayaa in hadalladan aan ku hadlayo fanaaniin badan aan isugu tagnay oo aan dacwad aan ka gudbin doono hadduu alla idmane in oo sanadkan already waana dhaafa laakiin sanadka soo socdo hadduu alla idmo inuusan dhici doonin oo laga heshiin doono aysan ahayn barnaamijka loo bedeli doono Somaliland week laakiin Somali week annagu ma qaadan karno been idima sheegay kolley kallaki ahaan iyo dee shaxshaxleyna geeskayga fadhisaa marka for example hadda Muqdisho kale fanaaniin waxa joogan qaali ah fanaaniin waxa joogan oo de fankooda horumaray oo la jecel yahay like deeqdan nuursha joogo cod iyo ilaahay siiyay gabadha Nadira I think Nairus oo ma sha Allah Hanan Washington maxaan ku raadey qaar kale badan hadii Jigjiga la yiraahdo hadii Puntland hadii la yiraahdo Nairobi waxa jooga Idliyare oo boqorka codka aan dhihi karabo baa joogo Idliyare joogo waxa joogto Qoomalyara joogo waxa joogto gabadha Ikhrayare ma sha Allah sawtu rahma waxa joogta qaaliladan
فنانين وحوية وابوحان فنانين أو ما شاء الله أو ما أنت نيادو ذكر له صوت عنكرو أو قربها لما بلاد بيتشوغان أو أنت سكب ماله هذا إن هو قد سنة ونقطة أيضا نياد مرالك واسمي كرو ها مرك وحان ما أنت أن أجحد لتاسو حيتهاي دمير كي جالسين وياه إن أن أمسو متكلنا واجرته أو أن حقيق أن أجهيو فنانين ما أنت كنول لندن كل عادي محيتها حقيق بان إنك كهاد ليا والله حقيق بان إنك كهاد ليا فنانين تسي وحال لقو سمية فنانين تإيمانيسو فنان ملك لها فنان وولالو وإسوضة جعلنا هاي قبيلنا من هنا النقا انتي قبيل لي على شوض الله السيو فنانين تا لكن النقا انت بدن فنانين تا قبيل ملها وحاجرتو إن فنانين يمادين oo fanaaniintii ay u tageen fanaaniintii albaabka waa loo diiday mi believe garaynaysan albaabka waa loo diiday inta maysan u joojinin waxa weeye soo ansoo si ku gali karaan oo bahadil ah bay albaabka ku galeen fanaan albaab laga celinayo waa maxay mikrofon inuu qaato muusan u tagin wuxuu u tagay fanaaniintaasi maanta Soomaaliya nooga yimid in ay soo salaamaan ay dareensiiyaan in maanta fanaaniintii walaalahood ay ka soo horeeyeen in welcome to London inay yiraahdaan kowde waa loo diiday soo way galeen hadda ma magacaabayo kow iyo laba ma dhahayo laakiin xaqiiqatul hal qof xataa maaha labana maaha fanaaniinta loo diiday oo la yiray ma galeysaan banaanadaas ka raadsada fanaaniinta marka ma waxaan ka aamusi karnaa taas aniga waxa weeye hadda Europe iyo maxaan ku raada furin la waa u tagay ma sha Allah 19 waa soo salaamay ilaa laki London degantahay mana noo imaan waxoogaa waa ceeb waa isku fiicannahay waan aqaanaa ma sha Allah waa soo salaamay waa ka soo tagay inkastoo habeenkaasi aanan u diyaar garoobin aniga hees laakiin waa soo salaamay ma sha Allah laakiin ma aanan arag anigu wax oo dhibaatay laakiin walaalkay mase walaashay hadii la dhibaateeyay anigu soo dhaweyn la isoo dhaweey waxba ii noqon mayso marka arrintaasi ayaa ugu badan inta aan ka dhiidhiyay fanaaniintana waxaan la yaabanahay oo London ku nool kuwa kale waxa weeye iyo kuwa Soomaaliya joogo dhan laakiin kuwa London ku nool iyagiiba hoygooda loogu yimid maxay uga hadli waayeen ma garanayo waxay uga hadli waayeen bay cabir adiguna shaah kuleel baad cabto Allah ilahe marka waxa weeye in laga hadli weeye waxyaabaha qaarkood oo fanaaniinta dhibayo mise lagu dulminayo fanaaniinteeni waa in laga hadlaa marka hadda anagu kolley dacwaan diyaarsanay haddaan Soomaalida maxaan ku yiraahdaa oo wadanka ku nool haddaan nahay fanaaniinta maxaan ku yiraahdaa de in qaabkan laga bedelo aysan ahayn la qaato Somaliland week anigoona qof maanta aanan magac iyo waxba aanan sheegaynin Soomaali waa Soomaali muuyo joogo abwaankayga qaaliga marne fanaanka qoto heesta qoto qaaday wuxuu yiray hees hadda uu soo wada weeye wuxuu yiray kowde siyaasad haddii la isku seego dadku sinjibi wadaagaa siyaasad haddii la isku seego dadku sinjibi wadaagaa Soomaali waaye ha Soomaali waaye siyaasad haddii la isku seego dadka sinjibi wadaagaa sokeeye ii xigaal waaye Soomaali waaye heeso hadda uu soo wada weeye marka Soomaali waaye Soomaali mar walba waxa weeye ma kala qaadi karna anaga marka bal hadda shaxshaxan ku wareejinaya aniga mawduucana u soo galayna waxay tahay in magaca Somaliland week in loo daayo mise Somali week hadday tahay in saan wax laga bedelo oo fanaaniinta la simo saas waa haye shaxshax السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلبات إمر سدحة سومالي ذا جوكت وايد السلام سيتين ملفي عني هاي برنامج قال لك لبا أمبول نقر أما الصومالي ويك بو أهان أما دولة الصومالي لان ويك بو نقنايا لبا داسو نقنايا وحكت لحيو مد عيسو أما الصومالي لان ويك بو نقن أما الصومالي ويك بو نقنايا أما الصومالي وي أسنانيسا
يا أما مال بقوة جاية هل مال كليو نقولها برنامج كذا صار لقوم وضع سكر لقوم أنا وضع جوبي كرو دي ددني ما ما هنودي لقتني وهذا صار حرت فنانين لندن جوكتو بيبرف له كلاس برف يعبين إنه يكونوا هذا ونيجود كعو وحساها بيك على هالتجوال أنا كفنان مال كستو جوجو وإيه فنان كي نيدayda ufra gurigayga ufra xolayga ufra qalbigayga ufra maskaxdayda ufra laakiin aniga marra fanaan inuu iga xigsado fanaanku waa walaalkay fanaanku waa ehelkayga fanaanku waa dadkayga inuu wax helana waa jeclaa inuu dhargana waa jeclaa ana inaan ragu jeceliyo laakiin ma ogoli Somali week qaarna 3 4 5 laga keeno meel hal xabba laga keeno no ma dhacayso Soomaalida hala wada simo oo sinaan waxa lagu wada qaato aysan ahayn hal meel ha u go'o Somaliland week ka noqdo barnaamijka waa ogolna waa ka baxay salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaam lakiyay hawsha waad nagilisay meesha ku dhameynayno waana la ogaanaya insha Allah sheekadan halkaasay ku dhantahay intaasan ayaan maanta in caawa aan idinku soo galay inaan idin la qaybsado shacabkayga intii og de waaba ogtahaybo intaanan ogeyn in ay ka dhidhiyaan oo ay ka hadlaan xal loo hadli waaye ma la isku cadaabo waa la hadlaa inta xumaha iyo uqdada qabtane ilaahay calooshooda nadiif ha ka dhigo waa la wada hadlaa wax walba waxa weeye waa laga hadlaa laakiin uqdada ma fiicna hadalka si hadduu qofka u yiraahdo si kale ma loo bedelo Somaliland iyo Soomaali iyo fanaaniino idilne waa walaalo waxaan idin leeyahay sheenada qootada ka daaya sheekadan qoota ka weyn qoota maaha sheenadan warkan waaweyn waaye sheekada qoota waa ka weyn tahay saxaabayaalo kowdhe fanaaniinta meel walbo ay joogaan waa inay hadalka erayadan hadda programkan aan ka hadlay waa wax annaga dhan ina wada taabanayo marka saxaabay ha idin macaato waana mahadsantihiin kal iyo laab waa aagii DJ Subeer kowdhaha marka asxaabay waa idin salaamaya waqtiga ha idin wacnaado arintaanne kama aamusino mid laga aamusi karana maaha Somali week ama Somaliland week labadaas mid un bay u dhici doontaa insha Allah marka waxa weeye arintu weyn halkaas ku eg tahay marka salaam calaykum I love you all bye bye